sheekadani war sheekadani calool xumo badana daawade bal sawiro waxa tahay aabe reerkiisa iska dhaqda Soomaaliin maalmaha kamid ah waxaad ku war heshay xaaskaagii in la dilay deetana adiga lagama hadlinba waa lagu soo qabtay xabsiga ayaa lagu dhigay walibana waxa lagu xukumay xabsi daa'im inta noloshaada ka dhiman xabsi ku jir walaal saaxiib laakiin dambiile ma tihid xaaskaagii aad jecleed baa la dilay laakiin cadaaladda ayaa kaaga helisay dambiilihii dambiga geystay noloshiisii buu iska wataa laakiin saaxiibayaal cadaalad darrada iyo dulmigu badana ma waaro si kasta ha u dheeraado waqtigu dooni ha qaato ugu dambayn xaqiiqada dhabta ah dibadda ayuu soo baxdaa sanado aad u badan kadib wiil yar oo sabiya ayaa ilaahay waxa uu sabab uga dhigay in la helo khaydkii ama raadkii lagu tixraaci lahaa dambiilaha dhabta ah sidaas ay xaqiiqadu ku qarxi doonto cadaaladdu ku iman doonto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي كحنا channel كدوينها أي يوتيوب صاحبي هالكسر دوّا مقال كنا مانتا رمضان كريم إن في عندي مرجينيا صاحبي هالكيس كنا مانتا يدين سيدو ومهم سبب أيا نصوا دورتون نصوا قاتي سبب تنصوا قاتي أيا واحد صاحبي هال وحاو كيس كان إن تصينيا سيدا مررك قار عدالة لفتر كده تكي عدالة الله دون الله الدولة دها مررك قار يقف فشل مكران أريما فربضان وبلشتري ذا كما هاد لا يفشلات أقندر رأي كنتي dhibaatooyin laga maray oo xaqiiqdi no xaqiiqadii ayadoo la og yahay oo loo jeedo ayaa ogaan indhaha loo qabtay ninka ugu sareeya ee wax xukumaya laftirkiisa ayaa wax waliba og wax warka idin ku dheerayna saaxiibayaal balkiiskani la yaab ka badan horaan uga socono taariikhdu waa sanadii 1986 goobtuna waa gobolka Texas ee dalka Mareykanka maalinimadaasi saaxiibayaal arrin la yaab leh ayaa dhacday wiil yar oo ku dhawaad 3 jira ayaa waxa la arkay asagoo wadooyinka magaaladaas iska socda uu dayacan yahay waalidiintiisa lama joogan waa ilmo yar oo 3 jira isla markiiba dad wadada marayay ayaa arkay waxaana ugu waceen booliiska ilmaha yar uu dayacan yahay ma aha ilmo darbi jiif ah waalidiintiisu uguma talagelin iska badhaafe waalidiintiisu waa kuwa aad u jecel aad u daryeela sida caadiga aadna uga warhaya haddaba booliiskii markay ilmihii yar soo gaadheen guriga geliyeen gurigii waxay ugu tageenba arrin aad u xanuun badan waxay ugu tageen wiilka yar hooyadii oo si xun loo dilay oo meyd ah oo meesha taal maxaa la sameeyay dibadis baa isugu timid kiiskii baa la guda galay waa la baaray dambiilihii baa ugu dambayn laga daba no waxa soo dhan lama sameyn waxa la isweydiiyay shakhsiga ugu dhaw la qaban karo waayo odaygeedan marka meeshaba joogin ayaa gacanta lagu soo dhigay asagoon laga hadlin baa waxa lagu xukumay xabsi daa'im laakiin xaqiiqadu saama ahayn odaygaasi wax dambiye maanu keysan dambiile maanu ahayn arrintaasi booliiskuna wuu ogaa cadaymahana booliisku faraha ayuu ku hayay muddo 20 sano ayuu xaqiiqadaasi soo daboolay booliisku oo soo qarinayay shakhsiga kaliyaata ee dhacdadaasi goobjoogka ka ahaa ee ishiisa ku arkay waa wiilkaasi yar ee 3 jirka wiilkaas oo xagga hooyadii ku waayay hooyadiisii dhashay ee korinaysay xagga ku waayay sidoo kalena aabihii cadaaladdu ay uga helisay oo xabsiga si dulmiya loogu xareeyay wiilkaasi yar ayaa weynaaday 20 sano kadib kaliya xaqiiqadii dibadda maanu keenine ku guuleystay inuu sabab noqdo inuu aabihii xabsiga ka soo baxo hooyadiisii dunida ugu jeclaa ee hortiisa lagu dilayna oo u aargudo waa sheeko runtii xanuun badan qiiro badan haddana aad u xamaasad badan oo xiiso badan Okay, si fiican ugu faano sheekadan aan soo bilowno 13 bishii August sanadii 1986 meesha dhacdadani ka dhacday waa koonfurta Austin ee gobolka Texas subaxnimo degan joogu fiican yahay bilaa buuqa ayaa subaxnimadaasi waxa dibadda u soo baxaynin deetana waxa uu arkay wiil yar oo 3 jira oo wadada socda wiilka yar wuu garanaya dharkiisa wiilkaasi yar wasakh ayaa ka muuqata horena umaanu arag ilmahaasi yar asagoo banaanka socda inuu hooyadii la socdo mooyaan baabihi waa ilmo yar oo baby ninkii wuu soo baxay daaqad waliba ka arkay moogtay ilmihii yaraabo gacanta qabtay gurigoodii ayuu geeyay albaabka ayuu istaagay deetana waxa ku dhawaaqay Christina waxay ahayd wiilka yar hooyadii waa u dhawaaqay yaa jooga albaabku banaan yahay cid la hadashay markuu waayay ninkii oo ilmaha gacanta haya ayaa guriga gudaha u soo galay isagoo hadlaya oo dhawaaqaya Christina xagee joogta yaa jooga guriga soo u socday markii dambe waxa uu soo galay qolkii hurdada halkaas ayay masiibada iyo balaayadu ka bilaamatay waxa uu ninkii arkay Christine oo sariirta jiifta agaarkeedina dhiig uu ka muuqdo
korkeedana saa loo saaray oo lagu qariyay shandad yar iyo dhar xoogay sidii dambiilahaasi inuu isku dayay inuu qariyo laakiin xoogay wuxuu saa u yardu lagu ka cararay meesha inta markuu arkay ninkii jaarka ahaa fajax iyo anfariir baa ku dhacay isla markiiba booliiskii ayuu wacay booliiskii ayaa meesha soo gaaray asagoo faras kulama gelin booliiskii meesha markuu soo gaaray ayuu boorsadii iyo mariyihii wixii dul saarnaa ayay ka kor qaadeen misna Christine wajigeeda xataa si fiican looma garanayo oo dilaagu wax culus oo weyn ayuu madaxa kaga dhuftay si bilaa naxariisa arinta cajaa'ib ka badan ayaa waxay tahay guriga markii saa loo fiiriyay albaabka kama muuqato wax jibina sidoo kalena guriga kama muuqato haba yaraatee in wax laga xaday oo kale wax waliba waa iska caadi wax la jijibiyay meesha kama muuqdaan sidoo kalena Christine markii la fiiriyay wax tacadiya looma geysan tacadi markaan ku leeyahay I hope inaad fahmaysid tacadigan wajeedo looma geysan waa iska caadi in la dilay oo nafta la dhaafiyay mooyaane dhinaceeda kale wax gudba laguma sameyn booliiskii ayagoo yaaban oo leh waroma xakiiskan la yaab kale ee wax raadana ka muuqan dambiilaha geystay baa waxay heleen warqad uu qoray Christine ninkeeda balse si qaldan meeshaas ugu dhacday waqtigaasi ayada ah Christine ninka qabay shaqada ayuu ku maqnaa waxa uu ka soo baxay shaqadii asagoo u soo dhaqaaqay dhinaca iyo xadaanada mabase daycare-ka oo doonayay inuu ka soo qaado wiilkiisa yar Eric sida caadiga maalin walba markuu shaqada ka soo tagayo xagga daycare-ka soo maraa wiilkiisa yar Eric buu soo qaadaa guriga ayuu keenaa oo guriga soo wada raacaan laakiin waxa uu la yaabay maalinimadaas ma joogin ambabase maba imanba wiilkii yaraa meesha oo sida caadiga hooyadii ayaa keeni jirtay asaguna waa uu ka soo kaxayn jiray markuu imanayo shaqada ka soo rawaxayo marka maalinimadaas maba aanay keenayba dee waatan masiibadan dhacday waxaa bilaabay deetna inuu laynkii guriga uu soo waco balse uu u hubiyo xaalka guriga iyo badqabka qoyskiisa telefoonkii waxaba ka qabtay ninkii ugu sareeyay booliiska bahorjoogihii ayaa telefoon ka qabtay lamaba aanu sii hadalay waxa uu ku yiri nin guriga kale sida ugu dhaqsiyaha badan ninkii oo yaaban ayaa soo dhaqaaqay balse maanu ogeyn inay noloshiisu saacado yar gudihiisa ay isu dabagedin doonto masiibo iyo imtixaan adagna ay bilaabmi doonaan ninkii Michael ahaa markii uu hadaba guriga soo gaaray waxa uu yimid xaalkoon caadi ahayn gawaridii booliiska oo meesha taagan askar gurigii hareerihiisa buux Michael wuu naxay aad buu u naxay waxa uu yiri say wuxuu jiraan deetna si degan waxa lagu yiri xaaskaagii ayaa la dilay inta markii lagu yiri Michael runtii wuu naxay shock ayaa ku dhacay waxa uu yiri deetna balay banayahan soo arkay macnaha ujeedadiisu maanay ahayn inuu doonayo inuu soo kala hubiyo inay may tahay iyo inay dhimatay waxay muhiimadiisu ahayd bal inuu markii ugu dambeysay xaaskiisa oo isha soo saaro soo arko laakiin dambaarayaashii way ka diideen waxay ku yiraahdeen meesha baadhis baa ka socota adeer laguma ogolaanayo bartaas waxa ka bilaamatay runtii xisaab adag oo aad u la yaab badan ninkii Michael ahaa sida caadiga waxay ahayd in su'aalo ugu yaraan la weydiiyo oo la yiraahdo see wuxuu dhaceen xaaskaaga maxaad ka ogeyd maxaa jiray wax su'aalaha haba yaraatee ninkii Michael ahaa lamaba weydiin lalamana sheekaysan isla waqtigaas ninkii taliyaha ahaa go'aan ayuu gaaray go'aankaasi oo ah in dambiiluhu yahay Michael laftirkiisa sheekadu way isku dhamaatay dambiiluhu waa Michael baaritaan kale ma jirto saasay wax walba ku cadiin ku dhamaadeen 25kii bishii September isla weegi gabadhaasi la dilay gudaheeda waxa la aasay Christine waxaana dhacday ninkii Michael ahaa oo wiilkiisa maalinimadaas la fadhiya oo hab siinayo oo saa ugu dhagan oo ay labadooduba murugaysan yihiin ba hal mar albaabkii loogu soo garaacay police ayaa soo galay waxaana yiraahdeen Michaelow xarig ayaa tahay Michael iyo wiilkiisa yaraa Eric ee 3 jirka ahaa ayaa sidaa isugu dhagan wiilkii yaraa oo hinaya ayaa laga soo fujiyay oo laga furfuray asagiina waa la jeebeeyay oo gacmaha ayaa laga xidhay waxa uu leeyahay warbal xaalka dejiya ugu yaraan wiilkayga dad aan ugu wacdo hal ka xeeyo mayba lagu yiri mas'uuliyadiisa anaga la wareegayna meeshaan geeninana anaga garanay adigu waxa soo dhan ka bax Eric muddo hal isbuuc gudihiisa masiibo ayaa ku dhacday wiilkii yaraa hooyadii ayaa asagoo goobjooga oo arkaya hortiisa lagu dilay sidoo kalena aabihii ayaa asagoo arkaya hortiisa lagu xidhay oo laga fujiyay si xooga meesha looga kaxeeyay waa masiibooyin wiilkaas yar maskaxdiisa ay adag tahay inay ka baxdo inta noloshiisa ka dhiman aadna runtii ay maskaxdiisa u saameyn doonto arrintanina waxay maalintaasi bilow ahayd 25 sano oo waqtigii iyo cimrigii lagaga lumiyay oo lagaga khasaariyay nin miskiin ah oo dulman 29 bishii February sanadii 1987 wax 6 bilood ka yar soo qabashadiisii kadib ninkii Michael ahaa maxkamadda ayaa looga yeeray xusuusnow waa ninaan dambi gelin xaaskiisii la dilay xabsiga xaq darro ugu jiray baa waxa la soo taagay maxkamad
waqtigaasi ayada Michael markii maxkamadda loo soo waday aad ayuu u faraxsanaa oo waxa uu aaminsanaa boqolkiiba boqol maadaama uu og yahay inuu dambi lahayn inuu ku guuleysan doono oo la fasixi doono la oran doonana war wax dambiya ma adgelin fasax baa tahay oo xaqiisi sida ku heli doono kalsooni buuxda ayuu isku qabay laakiin sheekadu saas ma ahayn ninkan oo reer qorsha loo diyaariyay ninkan idin muuqda waa xer ilaaliye Ken Anderson xusuusnaada ninkan waa muhiim xer ilaaliyahani waxa uu soo diyaariyayba sheeko dhan oo ka waramaysa qaabka uu dambigaasi u dhacay ee wixii Michael sameeyay scenario caadi ah ayuu ka diyaariyay keeskii waxaa jirtay warqad uu Michael qoray oo guriga dhex taalay oo qoray malaha maalmo ka hor intii aanu dilkaasi dhicin waraaqdan ayaa waxa ka muuqatay kaftan uu xaaskiisa la kaftamay oo istee wax mushkilada saas u weyn meesha kamaanay muuqan Ken Anderson kani waxa uu ka sheekayay hadaba qaabka wax u dhaceen waxa uu yiri ninkan lagu magacaabo Michael maalinimadaas dhalashadiisii ayaa ku beegnayd deetana xaaskiisii Christina ahayd waxa ka codsaday cilaaqadii lamaanayaasha inay la sameeyso cilaaqadii lamaanayaasha laakiin way ka diiday ninkii Michael ahana uu xanaaqay oo waxa uu yiri seeba iigu diidi kartaa deetana gabadheeda ahayd nafta ayuu dhaafiyay oo waa u dilay waxa uu sidoo kale sheegay in aanu ninkan lagu magacaabo Michael haba yaraatay kuwa faraxsanayn guurka uu guursaday Christina waxa uu fursad ku raadinayay qaabkii uu gabadhaas noloshiisa uga saari lahaa ugu dambeynna mushkiladaas yar ayaa dhacday deetna uu dilay yacni marka si loo eego laba qof oo isqaba wada nool oo ready ilmo u dhashay macquul maaha in ay naagtiisi ninka u diido deetna isna xanaaqo oo naagtiisi nafta dhaafiyo dilay sidaas yar fudud ninkii Michael ahaa wuu hadlay oo waxa uu isku dayay inuu isdifaaco waxa uu yiri niman yahoon waxaaskayga ma dilin maalinimada dambigu dhacayna anigu shaqadeydii ayaaban aadiyo ku maqnaa cadeynteediina waan hayaa inaan goobtayda shaqada ku sugnaa maalinimada ka tagayna xaaskayga wax mushkilada nama dhaxoolin anagoo faraxsan baanu kala tagnay caadi buu xaalku ahaa wax mushkilada dhaxdeena maana oolin teeda kale warqadaasi yar habeenkii ka horeeyay ayaan qoray wax iska kaftana ayaanay ahayd wax serious ah meesha kuma qornayn laakiin Michael isha dadka maxkamadda jooga ku fiirinayaan waa il dambiile ninka hadalkiisa la maqlayo waxa weeyaan xer ilaaliyaha il naxariis leh Michael laguma fiirinayo warkiisana cidina kama dhageysanayso ninkani xer ilaaliyaha ee lagu magacaabo Ken Anderson saaxiibayaal waa nin aad u xun weeye sababta idin sheegaya ninkan waxa uu diyaar u ahaa si hadafyadiisa ugu rumoobaan waxa uu diyaar u ahaa in uu sharci kasta jabiyo wada kasta oo arkayo in horumarkiisa ay qayb ka noqonaysana oo uu qaado oo sameeyo ha qaldanaato amba ha saxnaatee muhiimadiisu waa in kiiskaasi uu ku guuleysto walibana kiiskan waxa uu arkayay mid muhiim u ah waxa uu aaminsanaa haddii uu kiiskani ku guuleysto oo sida uu rabo u dhaco in ahdaaftiisa oo dhinaca siyaasadda ka leeyahay ay u hirgeli doonaan waxyaabo fara badan iyo riyooyin fara badanna ay u rumoobi doonaan marka Michael dhibaatadiisa iyo mushkiladiisa iyo xaaladiisa waxba kama gelin asaga muhiimadiisu waxay ahayd inuu asagu guuleysto maalinimadaas ninkan lagu magacaabo Ken Anderson si kiiskan uu ugu guuleysto waxa uu maxkamadii soo xaadiriyay oo keenay nin dhakhtar waa dhakhtarkii baaray gabadhii la dilay ninkan dhakhtarka ah ayaa waxa uu leeyahay waqtiga la dilay gabadhaas waxay ahayd cabaar koodii habeenimo which means dilka gabadhaasi waxa loo geystay Michael oo guriga ku sugan aan shaqo taginba tekniika uu adeegsaday dhakhtarkani sida uu sheegayo cilmiyan haddii si fiican loogu fiirsado oo su'aalo fara badan la isweydiin lahaa macquul ma aha oo ma xadidi karo waqtiga saxda ah amba saacadda saxda ah ee uu dhacay dilkaas way adag tahay inuu xadido laakiin warkiisa laguma mashquulin ninkanina cilmigii waxa uu adeegsaday oo isticmaalay wada qaldan inuu sharciga ku jabiyo oo dhinaca uu doonayo ugu adeegsado Michael Ken Anderson waxa uu adeegsaday cilmigaas Ken Anderson waxa uu ka dhigtay cilmigaas hub oo si qaldan u adeegsaday nasiib daro waxaasi oo dhan waxay sii xoojiyeen in Michael hadalkiisa waxba laga soo qaadi waayo ninkani xar ilaaliyaha ee dacwadda ku soo ogeyna warkiisa la qaato oo dadkii meesha fadhiyay wuxuu ku xukumi lahaa in Michael qulubtooda ku jira oo waa diyaar waxaanay u arkaan inuu yahay nin bilaan naxariisa oo hanaba yaraatee wax arxana lahayn oo xaaskiisii dilay haddaba hal isbuucun kadib markii Michael maxkamadda la soo taagay 17 bishii February sanadii 1987 maalimadaas dadkoo dhan waxay sugayeen xukunka ugu dambeeya ee lagu dhawaaqi doono waxa uu noqon doono Michael intii aan la xukumin ka hor Ken maxkamaddii ayuu ka istaagay waxa uu garsoorayaashii asagoo qeeraysan uga sheekeeyay sheeko kale oo waaliya Michael kaliya kuma tuhmin inuu dambi dil u geystay xaaskiisa waxa uu yiri ninkan lagu magacaabo Michael
xaaskiisa markii uu dilay oo nafta dhaafiyay kadib tacadi kufsi ayuu geystay gabadhii ayada ahayd xaaskiisii ayadoo noolayn markaas ayuu king waxa uu bilaabay inuu isqiiraysiiyo oo indhihiisa ilinay ka timaado oo uu yidhaah ninkani nin wanaagsan maaha ninkani in loo naxariisto maaha xaaskiisii aad ka wacnayd ee miskiinta ahayd sidaas ayuu la dhaqmay qaabkaas ayuu la dhaqmay nin noocaas ayaa naxariis istaahila garsoorayaashii kamaba aanay labalabayn inay Michael ku xukumaan xabsi daa'im welibana go'aankii ugu dambeeyay intii aanan la qaadan ka hor hal codsi ayaan rabaa buu yidhi ninkii kiinaha wuxuu yidhi mudanayaal waxaa idinka codsanayaa in ninkan lagu xukumo dil badafiri waxa uu doonayaa in Michael la dilo si aana kiiskan mar dambe la isugu soo noqon oo kiiskan gebi ahaantiisuba hore u dhamaado halkaas loogu soo xidho laakiin xabsi daa'im baa lagu xukumay sidii maxkamaddii lagu kala kacay Michael waxa uu dareemay waqtiga la xukumayay in uu ku hoganayo oo ku sii socdo hog dheer oo mugdi badan oo dulmiya inay ummadii oo dhan isku raaceen in ninkaasi dambiyoon u geysan loo xukumo qalbiga ayaa horeeyay sababtoo ah warkiisa cidna ma dhageysanin xataa markii maxkamadda laga soo baxay ee ninkan la sii waday bahdii warbaahinta ayadoo kaamirooyinkii la duubayo oo ninkaas la daba socdo ayaa waxa uu yidhi anigu dembigan ma gelin ninkii Michael ahaa xabsiga ayaa la dhigay waxa uu aamini leeyahay sida yar ee fudud ee xabsiga sidaasi u dheer loogu daray Michael maanu joojin mar waliba waxa uu dalban jiray racfaan laakiin mar waliba uu racfaan dalbado lagama yeelayn Michael waxa jiray hal wax oo muhiim u ahaa Michael oo uu ka maarmi karin halkaasi waxa ahaa in uu la kulmo wiilkiisa mar waliba in loo ogolaado waxa loo ogolaaday 6 biloodba hal mar inuu wiilkiisa arko wiilkii yaraa Eric 6 biloodba hal mar ayaa loo ogol yahay in loo keeno markii loo keenana nus saaca oo haysto ee loo ogol yahay in waqti la qaato sidaas ayuu ugu dhagan yahay waxa uu leeyahay Michael habka yar uu siinayo wiilkiisa Eric waxay u ahayd oxygen nafsadiisa dejinaya ka kala dejinaya culayskii 6 bilood ee uu dareemay muddadii uu xabsiga ku jiray sidaas ayuu xaalkiisii ku socday waxa daba umuruusa ku socdaan ee xaalkiisa saahadaba saaxiibayaal wiilkii yaraa waa weynaaday waxa aad u xanuunay Michael markii uu maqlay Eric oo habaryartii ugu wacay hooyo habaryartii iyo ninka qaba ayaa waxay u haayeen waalid oo yaani hooyo iyo aabbo ku lahaa waqtigu waxa uu skuro wiilkii yaraa Ericna uu weynaaday waxa uu dareemay in marka si dambaysa wiilkiisu ka sii fogaanayo niyadiisuna ay ka sii durkayso sanado badan kadib wiilkii yaraa Eric abi waxa uu soo diray warqadan ayaa waxa uu ku leeyahay aabbo anu waan daalay khalaas fadlan waxaan doonayaa inaad joojisid la kulankayga inaan kula kulmo doonayo mar kale fadlan jooji Eric ma joojin karo ilaa aabahani oo yiraah waan joojiyay khalaas la kulanka wiilkayga marka waxa uu jawaabay Michael waa si wanaagsan hadaba aabbo waan ku barayaa hal mar markii ugu dambeeyay hal mar ay kale inaan ku arko ayaan doonayaa okay buu yiri sida ayaa dhacday 6 bilood waqtigii markay dhamaatay uu yimid waxa la socotay waqtigaasi habaryartii Michael cabaar buu istaagay asagoo indhihiisa ka muuqata murugo fara badan waa uu isxajiyay sidii ugu dhagdhagi jiray waxba ugmaanu dhigin sababtoo ah qoos ayuu taagan yahay deetana Eric habaryartii intuu saa u fiiriyay ayaa waxa uu ku yiri walaal wiilka ilaali dunida wiilkaasan ka haystay fadlan ilaali deetana qolkiisii ku xidhnaa ayuu ku laabtay ayadoo waqtigaasi ahayd sida uu aaminsanaa oo islahaa inay noqon doonto waqtigiisii ugu dambeeyay uu arkayo wiilkiisa intaas kadibna aanu dib u arki doonin laakiin saaxiibayaal waxa halka ka bilaabmay daraamo cusub oo xaqiiqooyin fara badan dibadda lagu keenayo isla waqtiga saaxiibayaal ninkii dambiilaha ahaa ee dambiga geystay tabcan asagu ma geysan dambiilahana waan ogahay idinku wali ma inaad ogaane ilaa hadda was weydiinaysaan cidda uu noqon doono dambiilahaasi wali banaanku jooga waxa laga yaabaa inuu dambiye kala banaanka ka geysanayo dambigii uu geystana miskiinkan baa u xiran marka saaxiibayaal Michael markii uu xabsiga ku laabtay wiilkii yaraana uu tagay halka waxa ka bilaabmatay drama cusub oo xaqiiqada banaanka keenaysa safar dheer oo lagu ogaanayo xaqiiqada dhabta ah saaxiibayaal ila jooga isla waqtiga ninkii garsooraha ahaa kiiskan ninkii Michael ahaa dib umaanu soo fiirin danna kamaanu gelin kaliya ta asagu waxa uu eryanayay riyooyinkiisa iyo danaha shakhsiyadeed ee uu kala yahay dhinaca siyaasadda muhiimadiisu waxa weeye boosishinadaasi waaweyn ee sare ee uu ku haminayay inuu gaaro muddadii uu xidhnaa Michael sidoo kale waxa uu ninkan lagu magacaabo Kim ku guuleystay in uu ka dhaadhiciyo Christine qoyskeeda in uu Michael ninka lagu magacaabo dilay asaga laftirkiisu xaaskiisa waxa uu awood u yeeshay inuu ku qanciyo Christine
walaasheed iyo welibana wiilkii yaraa uu dhalay Michael inuu aabihii dembigaasi geystay hooyadiina nafta u dhaafiyay taasi ayaa keentay inuu Eric aabihii cuqdad u qaado dhibsadana xataa la kulankiisa maadaama qalbigiisa ka dhaadhacsanayd inuu aabihii dembigaasi geystay hooyadiina uu dunida dhaafiyay cuqdad xun ayuu qaaday aabihii dhinaca kale Michael waxa uu aaminsanaa wiilkiisa inaanu dib dambe u arki doonin ilaa uu xaqiiqda banaanka keeno cadaaladuna ay soo daahir waxa uu mar waliba ku haminayay inuu wiilkiisa tusiyo cadaaladda oo uu xaqiijiyo inaanu asagu dembigaasi geysan ee uu hooyadii dilin ee uu welibana asagu yahay dulmanaha la dulmayo xabsigaas dulmi ugu jiro saas ayaa qalbigiisa ka dhaadhacsanayd waana runtii la kulan dambe ma jiro wiilkiisa go'aan buu ka gaadhay isaragti dambe ma jirto ilaa xaqiiqdu ay banaanka timaada mooyaane waqtigii ayaa iskuray sanado badan ayaa dhammaaday Michael la rajadiisa weli waxa uu isleeyahay maalin uun xaq uu dilaaci doonaa cadaaladdu way soo bixi doontaa markii la soo gaadhay sanadii 2004 17 sano markuu xabsiga liqay ninkii Michael ahaa waxa bilaamatay in faahfaahin yar oo fiican ay ka soo muuqato kiiska Michael in rajayari ay ka soo muuqato waxa waqtigaas Michael Cole ka soo gaadhay urur lagu magacaabo Innocent Project waa hay'ad khayri ah oo u dhaqdhaqaaqda dadka maxaabiista sida dulmiga ugu jira hay'adan waa hay'ad sharciyeysan dulmanayaashana si bilaash uga adeegta macnaha waa hay'ad khayri ah haddaba kooxdan kiiska Michael markuu gacantooda soo galay way fajaceen way yaabeen waxay la yaabeen ninkaas xukunka uu ku xukuman yahay iyo inta sano soo xidhnaa iyo kiiskiisa nooca uu yahay waa nin bilaa cadayn la iska soo xidhay hubkii uu dilka ku geystay aan la arag markhaati aan la arag cid ku cadayso oo markhaatiya aan la arag haba yaraatee wax allaale iyo wax cadayn ah oo ninkaasi lagu sugayo inuu dembigaasi geystay ayadoon loo bahayn kaliyaata sababta loo cuskanaya ay tahay inuu gabadhaasi qabay way yaabeen waxay dareemeen ninkaas inuu dulmi ku xidhan yahay takaaga sii daran ayaa waxay tahay in laga helay agaarka gurigii dilku ka dhacay maro bandana ah oo dhiig leh maradaasina waxayba ahayd cadaynta ugu horeysa ee xaqiijinaysa dambiilaha sugaysana inuu Michael bilaa dambi yahay laakiin maxay sameeyeen bahdii dambaarista ee gacanta ku haysa kiiskaas marada way qaadeen meelaha cadaymiye waxyaabihii lagu ururiyay baa lagu riday lamana baadhin laba calin isma weydiin bartiba lagu dhaafay kiiskan haddaba waxa mas'uuliyadiisa gacanta loo saaray nin lawyer oo lagu magacaabo John Lee ninkani waa nin lawyer ah nin sharci yaqaan ah shaqadiisana daacad u ah nin aad u wanaagsan weey oo Ilaahay qalbi siiyay ninkan markuu kiiska Michael saa u fiiriyay runtii wuu yaabay aad ayuu nooga xumaaday takaaga sii daran ayaa waxay tahay dhakhtarkii sheegay in gabadhaasi la dilay koodii habeenimo waxa la ogaadayba in gabadhaasi meydkeeda uu baaritaan ku sameeyay dhowr maalmood kadib markii la dilay aadna u adag tahay inuu sugo saacadda rasmiga dilka loo geystay gabadhaas kaliyana uu maalintaasi maxkamadda uga sheegay sidii uu ninkaasi xer ilaaliyaha u rabay buu sameeyay saaxiibayaal qareenkii John ayaa waxa uu dhaqaaqay dhinaca iyo meeshii uu ku xidhnaa Michael qolkii uu Michael ku xidhnaa ayaa laga soo saaray deetna meel ayaa la sii fadhiisay oo ku sii sugayay waxa uu tagay nin wajigiisa ay ka muuqato murugo aad u fara badan aragtidii uu ninkaasi Michael ninkan sida uu arkayba qac ayuu dareemay waxa uu dareemay dulmiga iyo murugada indhihiisa ka muuqata xanuun badana ninka ragga marka la ciil bado Michael ayuu soo hor fadhiistay waxa uu ku yiri niyo hambaliga waran kiiskaaga madow fara badan baan ka dareenay bal waxaad samaysaa dambigaasi uu dhacay bal iga sheekee iyo saacadii ugu dambeeyay ee gabadhaas wuxuu yiri niyo Christine waxay ahayd qofka aan dunida ugu jecelahay waxay ahayd shumicii noloshayda farxadayda ayay ahayd farxad ba waxaan helay gabadhaas markaan guursaday habeenimadaas waxa ku beegneed dhalashadayda farxad ayaan wada qaadanay waan wada dabaal degnay waan wada seexanay waagi baa bariyay aniguna shaqadeedii ayaan u dhaqaaqay balse markaan soo laabtay xaalkaas ayaan u soo laabtay anigina meeshaas ayaa la soo fadhiisiyo maanta cid iigu micintaan lahayn oo dhax fadhiya ayada waliba xaaskaygii aan waayay wiilkaygii yaraana liiga fogeeyay walibana arinta aad kay xanuuninaysa waxa weeye waxaan ilaawi laahay wiilkaygii yaraa oo oohinaya sidii xoog ahayd ee liiga faramaroojiye liiga baxay qaaday iyo nolosha mugdiga leh wiilkayga ku soo noolaa bilaa hooyo bilaa aabo waxaas oo dhan way saameysay waxa meeshii ka soo baxay ninkii John ahaa oo runtii nafsiyan aad u saameysay
qisada ninkan saamaynta ay ku yeelatay maanay ahayn ka qareen ahaan ee si shakhsiyana ka aabe ahaan maadaama uu yahay aabe waxa uu isdhigay booska uu ku jiro ninkaas aad asagoo u qiiraysan aad u murugaysan ayuu ka soo baxay gurigii ayuu yimid waxa uu arrintii uga sheekayay deetana xaaskiisa waxa uuna ku yidhi waxaan 100% aaminsanahay ninkaas in si dulmiya u xidhan yahay deetana waxay ku tidhi xabiibi shakhsiga keliyaata ee ninkaasi ka soo saari kara meeshaas ayaa tahay ku dadaal isla waqtigaas waxa uu qaatay go'aan shakhsiyadeed oo ninkaasi ma kala kula dadaalayo oh my god sheekadan ma aqaan sababta ay sidan dhan igu saamaysay runtii sheekooyinka reer galbeedkan ka sheekeeyo waxay ka mid tahay haddayna number 1 ba ahayn sheekooyinka aniga sida gaarka ay saameeyay kiiska wiilkan walibana waxa sheekadan wadna taabad ka sii dhigaya sida uu ula tiiraanyooday ninkani qareenka ahay Michael ninkii Michael ahaa hawshii ayuu gudagalay waxa uu isu keenay tiimkii la shaqaynayay waxaanay bilaabeen inay isla fiiriyaan cadaymihii la ururiyay waxay awoodda saareen baandaanadii laga helay agaarka gurigaas oo aaminsanaa John in cadayn muhiim laga heli doono lagana heli doono shakhsi saddexaad DNA-giisa maradan ayaa waxa laga helay agagarka gurigii Michael isla waqtigaas askartii meeshaasi socotay mid kamid ah u arkay waxa uu ku riday sanduuqii cadeymaha lagu ururinayay waana la isla dhigay cadeymihii wixii oo dhan faraha laga qaado waa la isla dhigay haddaba balaayadu waxay bilaabmatay markii John iyo tiimkiisu ay codsadeen in baandaanadaas la baaro si DNA-ga loo ogaado markay tageen ay yiraahdeen waxaan u baahanahay maradaas inaan baadhno waxaba soo baxay go'aan lagu mamnuucayo in nimankaasi gacanta loo geliyo baaritaan ku sameeyaan waxa lagu yiri niman yahoon raali ahada dadkii naga sareeyay ayaa mamnuucay in maradan baaritaan lagu sameeyo markaas ayuu John Lee u bilaabmay shakigi ayaa si tartiib uga bilaabay meeshaas waxa uu isweydiiyay maxay tahay sababta loo mamnuucayo oo loogu diidayo in maradaas baaritaan lagu sameeyo si loo ogaado dambiilaha mushkiladda ku jaban maxay tahay uu dhaqaaqay waxa uu abaaray oo isla markiiba u dhaqaaqay dhinaca iyo xir ilaaliyay guud oo waqtigaasi fadhiyay shakhsi lagu magacaabo John Brandley iyo noocaasa adigu John baan ninkan la yiraahdaa ninkii buu tagay waxa uu ku yiri maxaa dhacay waxaan doonaynaa in maradaas baaritaan ku sameeyno si aynu kala cadeyno oo aynu kala xaqiijino ninkaas inuu dambiga geystay iyo in kale wuxuu ku yiri yahoon anagu kaliya ta waxaan doonaynaa inay wax walba dibadda yimaadaan marada marka baaritaan lagu sameeyo laba midun baa soo bixi inay ku cadaato inuu ninkaasi Michael dambigaasi geystay oo si rasmi ah ugu wada cadaato meeshana shakigu ka baxo amaba se in maradaas laga helo dambiile kale shakhsi kale DNA kale taasi macnaheedu tahay haddii DNA kale maradaas laga helo inay cadeyn u noqon doonto arrintaasi inuu jiro dambiile kale dambiilahaas oo walibana inuu dhaxnool oo si xor ah bulshada ugu dhaxnool labadii John si caadi ah u sheekaysteen laakiin Johnkii meesha fadhiya xiraalaya ayaa waxa ku yiri ninkani qareenka niyoon si fiican u dhigayso annaga amar sare ayaana la siiyay waxaana meesha ku xusan in haddii maradaasi baaritaan lagu sameeyo ay sumcad xumo dawladda soo gaari doonto iyo xukuumadda wuu yaabay ninkii qareenka ahaa wuxuu ka yaabay nin miskiin ah oo dambi lagu oogay oo xiran oo la leeyahay waa dambiile in dambigiisa la sugo siday ku noqon karto sumcad xumo dhinaca dawladda ma taqaanaan shakhsiga amarka bixiyay amarka ah inaan baaritaan lagu sameyn maradaas waa isla xir ilaaliyihii markii hore ku dadaalayay in ninkan xabsiga la dhigo waa ninka lagu magacaabo Ken Anderson oo waqtigaasi ah xaakimkii guud ee magaalada ninka dhan ee maxkamadda fadhiya ee go'aanka ugu sareeya gaadha waqtigaasi waxa uu lahaa awood iyo power aan caadi ahayn waxa uu ahaa nin siyaasadda saameyn ku leh connectionno waaweyn leh ninkan waqtigaas waaweynka ayuu noqday oo hadafkii uu u dadaalayay ayuu gaadhay marka asaga ayaa soo saaray qaraarkaasi lagu mamnuucayo in maradaas baaritaan lagu sameeyo sababtoo ah waxa ka soo bixi doona ayuu og yahay maradaasi kaliya ta ma kashifi doonto xaqiiqada dambiga ee sidoo kale waxay cadeyn doontaa xaqiijin doontaa sugi doontaa dibadda keeni doontaa sidii ninkaasi loo qorsheeyay filinkaasi loogu dhigay xabsiga intaa leegna lagu go'aamiyay inuu galo dhinaca Michael xaalkiisu wuxuu yahay wixii ugu muhiimsanaa uu dadaalayay waxa soo gaadhay fariin runtii xanuun badan oo qalbi jab ku noqotay fariintaasi oo ka timid dhinaca iyo wiilkiisa yaraa u dhalay Eric warqad ayuu soo diray oo ku leeyahay aabbo waxaan doonayaa inaan magacayga gebi ahaanba bedelo aabbahayna bedelo oo ku bedelo magaca ninka qaba habaryartay micnaha maanta laga bilaabo waxaan leeyahay ninkaas ay dhalay gebi ahaanba inaan ku sheegto marabi inaad aabbahay noqotid marabi halkayna sheekadu ku soo dhamaataan doonaya fariinta markuu arkay runtii Michael qalbi jab ayaa ku dhacay aad ayuu uga murugooday wixii ugu muhiimsanaa uu dadaalayay oo uu doonayay inuu u xaqiijiyo waatan uu ka sii fogaanay wiilkiisu xaalku waa xun yahay
haddaba bishii March sanadii 2008 saddex sano oo lawyerkaasi ka daba wareegayay in faylalkaasi dib loo furo si DNA-ga baaritaan loogu sameeyo ugu dambeyn waa loo ogolaaday maxkamaddii markii la isugu yimid ninkii John ahaa waxa uu hor istaagay garsooraha waxaana si toos ah ugu sheegay uu ku yidhi mudane garsoore waxaa jira cadeymo fara badan oo la ururiyay oo baaritaan lagu sameyn waxaana codsanayaa in cadeymahaas nala ogolaado in baaritaan lagu sameeyo DNA test lagu sameeyo waxaana jira buu yidhi dad madax ah oo sare oo kiiskan si uun u daboolaya oo qarinaya laakiin garsooraha soo taagan ee ninkan warkiisa dhageysanaya wuxuu odhan lahaa already waa uu soo diyaarsaday ereygii odhan lahaa wuxuu sheegi lahaa already waa uu diyaar tagaaga sii daran ayaa waxay tahay xer ilaaliyihii waqtigaas ee John u sheegay in faylkan haddii dib loo furo oo DNA-ga maradaasi baaritaan lagu sameeyo sumcad xumo in dawladda u horseedi doonto ninkii u sheegay ee xer ilaaliyaha ahaa waxa uu 100% ku kalsoonaa in John dalabkiisa la diidi doono sidaasi awgeed kalsooni uu kaga qabay awgeed maxkamaddiiba xataa maanu xaadirin xataa maxkamaddii ma baanu tegin sababtoo waxa uu aaminsanaa in laga diidi doono kulliba sidii ayaa dhacday garsoorihii waa uu diiday waxa uu dib loo furayo khalaas sheekadan oo loo kala kacay ninkii John ahaa oo niyad jabsan ayaa maxkamaddii ka soo baxay waxa uu toos u abaaray xafiiska xer ilaalinta ee uu fadhiyo ninkii John Bradley ahaa oo u jiray 200 oo kiiloomitir gaarigii ayuu sii daayay ayadoo xanaaq fara badan ka muuqdo oo aad u niyad jabsan yahay ayuu xaggaas u soo dhaqaaqay waxay leedahay xaaskiisu maalinimadaas waxaan ka baqay ninkaygu inuu galo shil ama balaayo ay ku dhacdo sida uu ceelanaa awgeed xafiiskii uu ku sugnaa ninkii xer ilaaliyaha ahaa oo u jira 200 kiiloomitir ayuu isku soo qaaday soo u socday waxa uu soo gaaray xafiiskii markuu soo gaaray waxa uu go'aansaday inuu ku dhawaaqo oo ka qayliyo gudaha xafiiska si uu ugu nafiso oo wax allaale wixii niyadiisa ku jira uga hadlo John Bradley xer ilaaliyihii waqtigaas ayaa meesha fadhiya iyo sidoo kale dad kale oo far badan waxa uu yiri maxaad oga baqaysaan in baaritaan lagu sameeyo si cadaaladdu ay dibadda u timaado waa maxay mushkiladda meesha taal ee oga baqaysaan aad u diidan tihiin haddii ninkaasi dembigu ku xadaado natiijada soo baxda waan qaadanayaa waana ku qancaya mas'uuliyaddeedana waan qaadanayaa idinkuse ma qaadan doontaan natiijada soo baxda hadday noqoto mid aan ahayn sidan aad wax wadaan inaanu ninkaasi dembiga geysan deetana meeshii ayuu isaga soo dhaqaaqay isagoo aad u xanaaqsan oo niyaddana iska leh nio ma isdhiibtaa sababtoo ah meesha ifaallo fiican kama soo socdaan dad sarsare ayaa hawshii xanibaya howlahani waxay ka kala socon laayihiin meelo sare asagoo saa u yaaban ayaa waxa soo wacay ninkii Michael ahaa ee xabsiga ku jiray waxa uu deetana yidhi niyahoon waa la yimid waxaa lagu yidhi shuruud baa lagu sii daynayaaye laakiin dembiga qiro inaad dishay gabadhaas afkaaga ka qiro oo dheh gabadha aniga ayaa dilay xaaskayga ahayd kadibna shuruud ayaanu kugu sii dayn oo dibadda baxaysa fiir edeb darrada iyo wasakhnimada meesha ku jirta balu fiirso ninkan miskiinka ah ayaa waxay la doonayaan shabaq kale haddii uu warkooda qaato oo uu yiraahdo dambigaas anaa galay anaa gabadha dilay dad far badan haddii isaga ahaan lahaayeen way sameyn lahayn intaas oo sano meesha ku xidhnaayeen laakiin isagu waa diiday 22 sano ayuu si dulmiya meeshaas ugu xidhnaa markii loo soo bandhigay markii ugu horeysay in si shuruuda lagu sii dayn doono haddii uu dambigaas qeyrto waxa uu yiri meel lagama yaabo dambi aan geysan lagama yaabo inaan dhawaan geysto aan qirto ma geysan meesha waxa ku xidhan sumcadiisii sharaftiisii ninkan waa nin u dadaalaya sidii uu xaqiiqadaasi banaanka u keeni lahaa wiilkiisu iyo dadkiisuna ugu qanci lahaayeen 22 sano ayuu si dulmi ugu xidhnaa waxauna go'aansaday inaanu isdhiibin waxauna ku yiri may deetana qareenkii John ayaa waxa uu ku yiri niyahoon xaqiran marnaba xaqiranin nimankan fursad bay kugu raadinayaan xaqiran aniguna ma nasan doono geed gaaban iyo geed dheerba waanu fuuli doonaa sidii aan xaqiiqadaas banaanka u keeni lahaa ugu dambeyn sanadii 2010 7 sano oo u dadaalayeen sidii maradaas baaritaanka loogu sameyn lahaa ninkaasi lawyerka ay meel kasta uu galayay waa loo galaaday in marada baaritaan lagu sameeyo maxkamaddii sare ee waaxda racfaanada ayaa John waxa uu yiri mayaho ma aqaan sababta loogu dhagan yahay marada in baaritaan loogu sameeyo cadaaladda waxaan looga cararayaa ma fahmin xer ilaaliyihii ayaa deetana waxa uu ku yiri bal ka waran haddii aan marada baaritaan ku sameeyno deetana ay soo baxdo inuu ninkaasi dembiga geystay Michael
maxaa lagu sameynaya deetana wuxuu ugu jawaabay qareenkani horta ha la baadho marka la baadho natiijada soo baxda kadib ayaa wixii lagu dhaqaaqayaa ee marka hore haddii baadhitaankiiba la diidan yahayba baadhitaanka ogolaada marka hore annagu ma baqayno waan su kalsoonnahay laakiin shakhsiga baqayay waa shakhsiga qarsoon ee gadaal wax ka qasaya ee hawshan inay kala socoto diidan waqtigaas ayada ah John Bradley cabsi fara badan ayaa ka muuqata ayada cabsi fara badan ka muuqato ayuu saxaafadda soo hor istaagay deetana waxa uu isku dayay inuu kiiska khalkhal ku abuuro oo uu bulshada shaki iyo tashwiish u dhex dhigo ku saabsan ninkaasi Michael ahaa soo sumcadiisa u dilo waa ninkii mar walba kiiskan dib u celinayay ninkan waxa sameynaya xir ilaaliyaan waxa uu taagan yahay uu ninkaas ha qirto ku qanciya inuu qirto dembigaas kadib baynu baaritaankan iyo hawshan galaynaa bal marka hore ha qirto inuu dembigaasi geystay hadduu dembiga qirto ila dembigaas waan qirtay sheekada soo dhamaatayba ninkan dembiga asaga afkiisa ka qirtay baaritaan uma baahna la oranaya hadhowna haddaba saaxiibayaal ugu dambeyn ninkii lawyer-ka ahaa iyo tiimkiisa waxa loo ogolaaday inay faylashaasi baaritaan ku sameeyaan baaritaanadooda haddaba markay guda galeen ninkii Ken Anderson ahaa xer ilaaliyihii hore archiveskiisa waxa laga dhaxelay cadeymo muujinaya oo sugaya inaanu Michael dembigaasi haba yaraatee geysan inuu geystay iska dhaafe inay xataa qalad ahayba in looga shakiyo inuu dembigaasi geystay cadeymaha meesha laga helay ee lagu tagay awgeedu waxaa meeshaas ku cad oo ka muuqata in meesha dembigu ka dhacay ee gabadhaasi lagu dilay laga helay raadad la yaab leh oo la garanayn sidoo kalena laga helay meelo faro lagu taataabtay haddii baaritaan lagu sameyn lahaana la ogaan lahaa meeshaasna waxyaabo fara badan ka cadaan lahaayeen xataa wax kale iska dhaafee waxaa la helay markhaatiyo sheegay inay arkeen shakhsi la yaab leh oo meesha ka soo baxaya kadibna gaari cadaan oo meesha ugu parking garaysnaa intuu qaatay uu meesha ka dhaqaaqo walibana ka sii wareegay gadaasha guriga Michael waana meesha laga helay marada buluuga haddii cadeymahaas la isticmaali lahaa oo si cadaalada loo isticmaali lahaa mar horeba sheekada way dhammaan lahayd ninka Michaelna cadaaladiisa waa heli lahaa laakiin cadaaladii indhaha laga qabtay meeshan dambiilaha ayaa la asturaya oo la qarinayaaba sidoo kale faylashii la ururiyay waxa ku xusan oo ku qoran waqtigii gabadhii Christine la aasayay in ay jirtay sheeko dhaxmartay wiilkii yaraa ee 3 jirka ahaa ee Eric iyo ayeydii waxa uu ayeydii uga sheekeeyay waxa uu arkay maalintaas wuxuu yiri waxaan maqlay hooyadii ooyeysa deetana waxaan arkay nin bila naxariisa oo hooyadii dilaya kadibna ninkaasi waxa uu ka baxay xagga dambe albaabka waxaana weydiisay deetana markaas aabba muu joogay aabaha deetana wuxuu uga jawaabay ma joogin aabbo faylashii la ururiyay ayuu ku xusan yahay hadalkaas kadibna dambaarayaashii maxay sameeyeen Christine qoyskeeda waxay ku qanciyeen dilaaga halista badan oo wiilka yar sheegaya Eric inuu yahay Michael laftirkiisa sidaas ay qoyskii ugu sheekeeyeen oo waxay dhahdeen wiilka yar saas ayuu uga jeedaa bal fiir meesha dulmiga ka socda iyo darrada ka socota sanadii 2011 ayaa la soo gaadhay waa 25 sano ku dhawaad kadib ninkii Michael ahaa xabsigiisa ayuu ku jiraa kaliya asagu natiijada uu sugaya ay jawaabta soo bixi doonto iyo waxa la oran doono tabar kale ma laha inuu xabsiga isaga jiro mooyaane rajadiisuna 100% maaha waxa dhici kartaba in maradaasi baahitaanada cadeyn baan laga helin baa laga yaabaa wax kasta waa macquul laakiin rajooyin kale oo fara badan ayaa jira cadeymo kale oo fara badan baa jira marka laga yimaado maradaas kaliya haddaba sanadkaasi 2011 maalin maalmaha kamid ah ninkii Michael ahaa oo sidii caadiga ahayd xabsiga ku jira nolol maalmeedkiisa iska wata baa waxa soo booqday shakhsi waa lagu la hadlayaa baa lagu yiri qof baa doonaya inuu kula kulmo oo kula hadlo okay baa yiri shakhsiga u soo baxay waa ninkii qareenka ahaa ee John oo wajigiisa ka muuqato dhool cadeyn aragtideeda baa hore ugu dambeysay waxa ku yirinayoon horta hambalyo maradii baaritaan baan ku sameynay DNA ka soo baxay waxa uu noqday gabadhii la dilay oo dhiiga waxa iska lahaa gabadhii la dilay ee Christine sidoo kale shakhsi kale oo la yaab badan fariis ayaanu ka helay balse shakhsiga laftirkiisa markii aynu baaritaan ku sameynay natiijada soo baxday shakhsigaasi waxa weeye nin lagu magacaabo Mark Allen Norwood Mark waa dambiile aad u halis badan oo dambiye hore 3 gobol ka kala geystay tuuganimo gacanqaad wax dhacid isku daydil waxaasi oo dhan kiisas noocaas ah ayaaba ninkan ka diiwaan gashan arinta kale halista badan ayaa waxay tahay ninkan lagu magacaabo Mark waxaba looga sheekisan yahay inuu gabadh kale uu dilay gabadh kale oo miskiin oo Deborah Baker lagu magacaabo inuu dilay ayaaba lagu haystaa gabadhaasi waxa la dilay markii Christine la dilay muddo yaruun kadib qaabka loo dilayna waa isla qaabkii gabadhan loo dilay wax weyn ayaa madaxa looga dhuftay meedkeedina busto iyo waxba la kor saaray faro ayaa laga helay la yaab badan haatan farihii gabadhaasi meedkeeda laga helay markii la baaray waxa soo baxday inuu iska leeyahay ninkaasi lagu magacaabo Mark
wixii laga baqay ayaa dhacay oo ninkaas mar hore in la qabtay ahaydba markii Christine uu dilay hadii cadeymahaas la isticmaali lahaa ninkan intaanu dambiga kala geysan waa la soo qaban lahaa waa la xidhi lahaa laakiin uu iska noolaa banaanka ayuu iska joogay si xora ugu dambeyn waxa uu markay cadaadeen ninkii Mark ahaa gacanta ayaa lagu soo dhigay waa goor nin miskiin 25 sano xabsi ah cimrigiisii ku soo qaatay wuxuu qasayna ninkan uu soo qasay Mark, Dave Fugit. Hey. I'm the lead investigator on the Deborah Baker case. You know, Mark, it's been 23 years ago that Deborah Baker was killed. With the advances in technology, you know, it was inevitable. You know it as well as I do that we were going to come to this crossroad. I mean, if you want to place me under arrest? haddaba saaxiibayaal markii ay cadaatay wax waliba ee uu ninkii Michael ahaa beri noqday ee la cadeeyay ee lagu dhawaaqay ninkaas in laga qaldamay si sharci darro ah oo xabsi ugu jiray dambigaasina uu geysan dambigana sida saxda ah uu geystay ninkaas ninkii King Anderson ahaa ee waqtigaas xeer ilaaliyaha ahaa ee sheekadan dadayay ayaa waxa isku dayay daqiiqadiisii ugu dambeeyay inuu isbadbaadiyo oo sumcadiisa hagaajiyo oo bulshada la hadlo waxa uu yiri walaalayaal systemka qaladkii ka yimid darteed waa idinka raali gelinayaa wixii dhacay waa kana isagoo sheekeynaya oo isku dayay inuu qaladka iyo eedda saaro systemkii waxyaabaas I want to formally apologize for the system's failure to Mr. Morton and to every other person who was adversely affected by this verdict. laakiin King Anderson waxaanu ogeyn waqtigaas isla waqtiga laftirkeeda inay hortaagneyd gabadh ay dhashay gabadhii dambe miskiinta ahayd ee Baker ee la dilay gabadhay dhashay oo weyn warkiisa iyo iskiiskiisa ee waxaanu ka sheekeynayo ay daawanaysaa toos u hortaagan tahay waxay tidhi hadii cadaaladdu waqtigaas shaqayn lahayd oo ninka isla markiiba la qaban lahaa maanta hooyadii way badbaadi lahayd way noolaan lahayd waatan iyadoo hadlaysa He's not holding himself accountable. He's making a lot of excuses. Do you feel he's responsible for your mother's murder? In part, absolutely. How so? He let Norwood go. He didn't get him when he should have. My mother could be alive right now if he had. King Anderson kaliya ta qayb kamaan oo ahayn cadaalad darrada ka dhacday meeshaas 25 sano ka hor balse waxa la oran karaa waxa ahaa madaxii amba mas'uulkii ka dambeeyay in cadaalad darradaas ay dhacdo xagee uu dadaalaha oo dambiilahaas waqti gelin lahaa sidii loo soo qaban lahaa ayaa waxa uu doorbiday inuu si yar oo fudud kiiskaas u yiraahdo waan xalinay miskiinkaasi dambigan lahaa in xabsiga loogu taxaabo asagana muhiimadiisu ahayd darajada uu ku haminay inuu gaaro sheekadii haatan way fool xumaatay xaqiiqadii dibadda timid ninkii odayga ahaa waa lagu soo wadajeestay waxa la bilaabay in maxkamadda la tiigsado looyar far badan ayaa arintii soo dhax gashay kuwa Michael doodaya kuwa meedhankiisa ka soo jeeda waa la isla go'ay ugu dambeyn ninkii asaga ahaa waxa ku cadaatay inuu ugu talagal si badheedha oo falkaasi u sameeyay uguna ogolaaday dambiilahaasi inuu dambigiisa sii wato si xorana u noolaado King Anderson ugu dambeyn xabsiga ayaa loo taxaabay waxa uu qaatay naanaysta ah xeer ilaaliyihii ugu horeeyay ee xabsiga u gala cadaalad darro sameeyay awgeedu walibana waqtigaas xeer ilaaliye maanu ahayn qaadiga dhan ee magaalada ayuu ahaa marka arintan baaritaankeeda la galiyay dhinaca kale ninkii Michael Nord asagana xabsiga ayaa la dhigay waxa lagu xukumay 2 xabsi daa'im maadaama 2 dambi oo dil oo waaweyn ay ku cadaadeen xabsi daa'im kala duwan ayaa lagu xukumay macnaha technologies ka dhimankaasi dibadda markii doona xabsigaas ay ku qaadanayaan dhinaca kale ninkan lagu magacaabo Michael waa serial killer aad u halis badan waxaana dhici kartay u badan tahay ninkani inuu geystay dambiye kale oo dilal ambaba se dambiye kale oo waaweyn oo aan wali ilaa haatan la xalin ambaba se cadeyn loo helin sababtoo ninkani waa serial killer aad u halis badan intaasi oo sanana xor ku soo noolaa marnaba loo soo qabanon xabsiga loo dhigin dilalkii iyo waxyaabo uu geystay laakiin ugu dambeyn finally waa la soo qabtay waa la xidhay ugu dambeyn 25 sano kadib ninkii miskiinka ahaa xabsigii waa ka soo baxay waxa uu kor u fiiriyay qoraxdii xorriyad for the first time ayuu banaanka u soo baxay runtii aad ayuu farxay waxa aad ugu faraxsanaa inaanu dhiman ayadoo wali cadaalad darradii aanay kala cadaan dambiilihiina aanu la ogaan waxa aad ugu faraxsanaa in ugu dambeyn uu dib u midoobo wiilkiisii uu dunida ugu jeclaa ninkii John ayaa waxa uu sameeyay kulan asaga iyo wiilkiisa casuumad ayuu fidiyay oo ay hal meel ku wada kulmayaan si ay farxadda wada qaataan John intaas oo sano asaga laftirkiisu la soo dadaalayay sidoo kiiskan uu guuleysan lahaa ugu dambeyn uu ku guuleystay alxamdulillah wiilkii yaraana sanado badan oo cuqdada aabihii u qabay kadib ugu dambeyn waxa cadaatay aabihii inaanu ahayn dambiile Michael waxa uu arkayaa wiilkiisii oo runtii qaabku u labisan yahay qaabku u socdo sidoo uu hadlayo waa isaga waa dhalinyarnimadiisii waxaana wiilkiisii ariga ugu dambeyn yiri erey oo intaas oo sano oon sugayay inuu maqlo erigaasi oo ah aabo sanado badan kadib wiilkiisii waxa uu leeyahay aabo
aad buruntu ereyga ugu farxay saaxiibayaal ugu dambeyn kiiskani aad ugu muruuda badan halkaas uu ku yahay in su'aal yar bay weydiinaya sheekadan sanado badan ka hor miyaan ka sheekeeyay mise ana u malaynaya sheekada inta dambe xoogay siban u yar dareemaya inay hore ay soo martay hadii hore u soo gudbinay ha ii soo qor ha kaliya tay soo qor si kasta taa saaxiibayaal gabiyaana muuqaalkeena maanta halkaas ku yahay rabadaantu haydin wacnaato maalintu haydin qurux badnaato habeenku haydin wacnaado waqti kasta idin tahay haydin wacnaato hal midna ilaawin channelkeena ku soo biirto subscribe si aynu gaadhno 1.2 million subscribers 1.2 million oo subscribers wow ونسوينا موقعنا لايك صار الى كل تدن بوحي سنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته goodbye